Goobjoogayaal ku sugan magaalada Muqdisho ayaa Juba Media u sheegay in galabta qarax uu ka dhacay nawaaxiga xaafadda Miranaayo ee degmada Cabdicasiis. Qaraxan kadib ayaa la maqlay rasaas sida ay sheegeen goobjoogayaashu. Ilo kala duwan ayaa inoo sheegay in goobta bartilmaameedka qaraxa inuu ahaa guri lagu dabiibayay dhaawacyadii macawisleyda beesha Xawaadle ayaa Al-shabaab kula dagaalamaysa gobolka Hiiraan. Maalmihii u dambeeyay ayaa Al-shabaab gobolka Hiiraan lagu dilay in ka badan 300 oo maleeshiyaad iyo horjoogayaasheedu. Xawaadle ayaa ku suntan ciribtirka khawaarijta. Weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli beeshu kulan ay ku yeesheen magaalada Nairobi ay ku xoojiyeen dardargelinta dagaalka ay kula jiraan kooxdu. Goor hore oo maanta ahna qarax kale oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka badbaaday sarkaal ka tirsan laamaha amniga.